madaxweynaha Somaliland madaxweyne Muuse Biixi nin dadka safiirada qaarkood dawladaha waaweyn ayaa mar ii sheekay waxay ku kulmeen Djibouti hadda ka hor kambiski aan ku kulano aniga safiir kale aan ahayn buu dhahay oo isla wadankooda marka Muuse wuxuu yiri waxaan la joognay wax saacad ku dhow half ka badan saacadaas wuxuu nooga sheekeynayay uu dhahay dagaalkii Soomaaliya Ethiopia dhex baray iyo wuxuu dadaalay iyo qaantu ka soo qaatay iyo faanka soo ugu faanayo iyo sidoo wuxuu dhahay maaragtay ninkaas markii dambe su'aal weydiiyo waxaan dhahay laakiin wixii oo dhan soo ma muuqatay inaad bariga qaldanad hadda saxsan tahay wixii oo dhan waxa dhahay waxba kama jiraan xasbaab ka waran say isu qabanaysaa waxana qod waxana maya laba arrimood isgeli karta ma aha waxana qod marka markuu miir qabo xilliyadaas haddii la dhihi lahaa xilligaas markuu joogay oo sargaalka sare ahaa Soomaaliya oo ciidanka cirka ku jiray haddii waxa loo sheegi lahaa waxa laga yaabay lahaa inuu dhaho qofkii waxa sameeyay kurka laga gooyo waa dhila waa la hubaa